بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال هذا يوتيوب عن التكنولوجيا وقت كلنا نقدر نسمع كتان بيج كان كلنا فيسبوك إشافي أحمد علي. رسالة واحد نقصد كتان إيميل كعالي@gmail.com. وقت كلنا سؤال نقصد كتان لنا عايو إنستغرام أو ديسكريبشن كهذا اللي كده نقري بدون إشارة. ما أنتم حالي ده هي عشان هذه من المنطقة ده هي أو كوس أبسن برامج كنا نسوي ده حسابات كيكوك بوجس ككمبيوتر أكاونتينج. barnaamijka maanta dhigan doona waa cashir aad iyo aad u muhiim ah. hore waxaynu soo dhiganay qaabka transactionska intooda badan loo geliyo. hadday tahay alaab inagu soo iibsano, hadday tahay mid aynu sii iibino, hadday tahay kharashaadka, waxyaabo badan baynu soo arag. maxaynu maanta markaa dhiganaynaa kharashaadka inkastoo inoo soo arag, laakiin insha allah waan arki doonaa kharashaadka waa inoo socdaan. dhacdooyinka aynu sameyn waxa loo yaqaana transaction, dhacdaa loo yaqaan. dhacdooyinka aynu sameyno waxay suuragala inaynu qaladnaa suuragala. inaynu lacagta qaladno, inaynu deedka qaladno, inaynu quantity-ga qaladno, inaynu amount-ga qaladno. waxyaabahaas oo dhan la qaldi karaa marka waxyaabahaas markaynu qaladno qaabkee loo saxayo ayaynu maanta leegi doonaa. waa casharada ugu muhiimsan buu kamid sidee loo saxayo. barnaamijkan runtii wuu yar hawl badan yahay sixitaankiisu. marna horta waynu saxaynaa, mar waabu qaldan yahay waanu dhilgaraynaa, qofbaa si qaldan guud ahaan buu diiwaangelin waanu dhilgaraynaa, mar waynu foord garaynaa, marka wixii aan faham weyno waa joojinaynaa si aanay xisaabtiina ugu darsamin. foord waxa weeyaan xisaabtiina si aan ugu darsamin oo uga mid noqon. marka maxaynu sameyneynaa? waxaan tegayaa reportkan tegayaa dadka wax ka iibin halkan ku jiraan. waxaan kasii tegayaa customer balance type. bal hadda oo kale haddaan iminka wax saxayo, iminka waxaad aragtaa invoice baad aragtaa jaamaciise waa invoice waa $1. haddii aan $1 baahay bal waan ku dhufano horta dhacdada, bal aan ku dhufano dhacda barti laga diiwaan geliya la tagaya. haddii dheedku qalday dheedkiina saxaynaa, haddii itemska laga iibiyey. iminka waxaad aragtaa computer baa laga iibiyey, 2 computer, waxbaa laga yaabaa iyo 3 desktop. marka iminka waxaan leeyahay tusaale ahaan waxaa laga iibsay desktopada, waxaa laga iibsay hal baab iibsay, waa qaldanayd, dhacdadaas way qaldanayd. hal markaan saa u idhaahdo waxaan leenahay dabeedna waxaan leenahay save and close. wuxuu ku leeyahay ma hubtaa inaad save garanayso, you have changed the transaction, do you want to record your changes? ma doonaysaa isbedelkaaga inaad save garayso? waxaan leenahay yes. dabeedna wuxuu ku leeyahay qofkan uu ku sheegayaa hore waxaan usoo sheegnay waxaa loo yaqaana credit limit buu imika ii sheegayaa inuu ku leeyahay lacagtiisu waxay maraysaa 900 jarjar. waxaan leenahay yes okay. credit limit hore soo aragna xadigiisana idhi hore ayaan halkaa u dhaafay. waxaa tahay imika jaamaciise invoicekiisi waan saxay, waa kan imika haddaan kan ku dhufto waa kan invoicekiisi waan saxay, lacagtaasna waa bixiyey. waka lacagta guud ahaan waa 740, lacagtana horaan u bixiyey. marka waxaan iska jaray laba computer baan laba desktop baan iska jaray, 3 desktop bay ahaayeen, laba jaray, hal baan soo celiyay, hal baan daayay. marka haddii dheedka qaldanayda waa sidan waa saxi kartaa. dheedka waa kan matchinteedii taa waa la sameyn karaa, way maxaan kaloo isla eegi doonaa. waxaa laga yaabaa dhacdadaas inay guud ahaan ay qaldan tahay, gebigeedu bay qaldan tahay. sidee loo dhilgareeyaa? imika kale waxaa taa nuux maxamed invoice baa lagu leeyahay xilligaa uu qaatay, brain furno. marka imika saa u furno waxaad aragtaa wuxuu inaga qaatay 2 computer iyo alfa adapter buu qaatay, $510 baa lagu leeyahay. bal waxaan sameynaa dhacdaas waa dhacdo qaldanba, qofka si qaldan u diiwaan geliyey. haddii xitaa qofku qaldan yahay waa la sixi karaa. haddii qof kale uu yahay tusaale ahaan oo macaamiishu yahay mid cusub yahay waa la sixi karaa. taas waa sixidii, waxaas waa la sameyn karaa sixitaanka. laakiin haddii qaldanta waxaa leenahay delete. wuxuu ku leeyahay ariga sure you want to delete this transaction. waxaa leenahay okay, waan delete garaynaya. hadda waxaa taa dhacdadii guud ahaan waa la delete gareeyey, bal save and close aynu idhaahno. hadda waxaad aragtaa ma jiro maxamed, nuux maxamed ninkii loolan jiray ma jiro, waa la delete gareeyey guud ahaanteed. way haddaba marka la dhilgareeyo qofka adminkaay wuu ogaadaa in wax la dhilgareeyenkaa report. dabeedna waxaan kasii dooranayaa taxes, accounts and tax baan leeyahay, audit trail baan leeyahay. intaa marka today baa imika halkan calaamasan, today baa ay yahay dhacdadaasi. waxaad aragtaa invoice-ka numberkiisu. haddii la isweydiiyo yaa dhilidgeliyey, qofkee dhilidgeliyey, iminka meesha waxa ku qoran admin baa ku qoran dhammaantood. userska markaynu gaadhno insha allahu qof walba user gaara ayaa la siinaya. marka imika waxaa admin baa dhammaantood ku qoran. admin sababtay ku tala waxweyn hal user baa ka jira kaana admin baa loo yaqaan. laakiin hadhow tole cashier-ka mid magaca la siinayaa,
mid qofka kale alaabta iibin saliska alaab balasi mid kasta waxaan siin doonaa userka qayb waxaa taa delete aragtaa statekiisa waa delete marka waa invoice ka saar meesha laga saaray oo la geliyay waka guud ahaan waa laga saaray marka way waxa kaloo jira dhacda in la void gareeyo void waxa way hakin lagu sameeyo jaamaci soo kale 400 ayaan void gareynay ama Faadumo oo kale halkan waxaad aragtaa invoice baad aragtaa $404 kaastaan void gareynaya bal waan ku dhufanaynaa مثلا فرنا حنلنا إيش أصلا فريا وحنلنا فويد هكي برا سوف يرجع حضرك تا كواتنتي وحتى سيرو أرتا وفويد ولا هكي مركا طالع مكان سيفان كروس مدوني سبب كلنا صيف كده ساعة عاص قسمه يصير ها كيس كده إمي كو حضرك تا dhacdadii waa taas waa invoice way taa laakiin takhriifba nabarkeedu waa taa laakiin waa zero waa la foorigay waa la hakima hadii laakiin ku dhufano waxaad arkaysaa waynu heleynaa macluumaadkii qofkii foorka lagu siimay arkaysaa xilligii waad arkaysaa invoice waad arkaysaa waa foord halkan state-ka daarto meemada waa foord waa la hakima marka waa la hakima isaga laftarkiisa waxaan ka soo arki karnaa halkii imika aynu ku aragnay dhinaca audit-ka hanti dhawrka dhinaca audit-ka ka arkana tan tagno waxa loo yaqaan accounts and taxes haddaan tago audit trial tan tago waxaad aragtaa halkan void inuu way bartaa waxaad aragtaa halkan hota void waa Faadumo waa kan admin baa void geliyay oo ka xilligeedu waa kan accounts code-keedii ama numberkeedu waa ka xaaladda hata in la void geliyay oo la hakiyay oo 00 wixiiba waa la void geliyay oo la hakiyay maanta casharka kooban ee aad ku muhiimka ayaan la wadaagay kamid barnaamijkeena xisaabaadka ee QuickBooks-ka waa salaamantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh